السلام عليكم كسر هذا البرنامج كفنك كرينتا عاو حلقتنا waxaa ku karin doonaa ama ku baran doontaan sida la isugu kariyo bariis iyo qudaar hadda waa bariis iyo qudaar ma laha wax chicken ma laha wax malaay ma laha wax hilib afaarahan waxaa loogu talagalay dadka vegetarian ama dadka jecel qudaarta dad badan waxaa jira hilbaha culeyskooda iyo waxyaabahaas aanan ka helin marka bariis iyo qudaar aad u macaan oo hilib aanan u baahan doonin ka sameyn doonaa waxyaabaha maanta inta u diyaarsan hada idin kala sheego waxaa isticmaali doonaa carrot aan soo jarjaray saa u jeedaan iyo baradho aan soo jarjaray basal iyadana aan soo jarjaray iyo digirtan cagaaran green beanska intaana isticmaali doonaa waxaa kale oo mainka ama ugu muhiimsan waxa uu ka karin doona maanta qudaarteena bariiskan waxa la lahaa alfanaar basmati waaye wuxuu ka mid yahay basmatiyada kuwa ugu macaan ee muqdisho laga isticmaalo ama laga helo bariiskaas asagana karsan doona qaabka u kala hormarnaa waxyaabaha ku dardari doono oo ku carfin doono ama ku macaaneyn doono waa arki doontiin laakiin inta mainka intaan waaye asla socono dibka waxa soo saartay biyo wax yar hadda way soo yara qandaceen saaxiib yaal marka hore waxa idin sheegayaa sir yar oo ani bariiska ii macaaneyso aan bariiska iiga dhigto mid furfur oo kala daadanayo sirtaas oo ah bariiska saacad ka hor xilli inta aanan karinin ina biyo la sii dhigo biyo yar qandacay ama xitaa biyaha caadiga oo normaalka bariiskaaga la sii dhigay saacad u jeedaan bariiskan biyo la yaalay ku dhawaad hal saac biyo la sii dhigay intaas hoola kale waxaas iska qabsanaaye kadibna waa kana hada bariiska diyaar waaye waxa sameyn doonaa cusbada waxa ku soo shubanaa marka hore biyaha dabkii saaran kadib bariiska waxa u karineynaa sida baastada oo kale yani biyaha waa lagu karkarinaa markuu ku karkaro waa laga miiraa ma aha bariiskii caadiga oo biyaha dhuuqaya la sugaayo soo hadda waxaa sameyneynaa 10 daqiiqo camal aan rabaa inaan bariiska biyaha ku kariyo kadibna waa ka miiri doonaa insha Allah bariiskana saa idin hore idinkugu sheegaa isticmaalaya waa alfanaar basmati oo aad ka heli kartaan Soomaaliya oo dhan bariiski waa ku soo shubay biyihii way ii soo kulaadeen biyuhu qabow kuma shubin biyuhu kulul ku shubay waxaa sugeynaa 10 daqiiqo kadib biyahan dhan waa ka miiri doonaa bariiska intuu bariiskii saareeyahay 10 daqiiqana waxaa sii shiilan doonaa oo sii diyaarsan doonaa basasha isla socod wanaagsan saa u jeedaan bariiskii uu soo yara bislaada hadeer aad uu furfur u yahay saa u jeediin ama ka dareemi kartiin kaamirada laakiin waxa u dhiman huuriskaas dambe qudaarta iskula huurin doonaa hadda saa idin sheegay biyaha u jeediin biyaha ka buuxo sida baastada camal u karineynaa idin bariiska waxa ka miiri doonaa biyaha qasab maaha inaan noocan kaliya u karsatid bariiska waxa ka dhigan kartaa bariis biryani bariiska caadiga guriga laga karsado bariis isku kareys oo hilib lagu karinaayo laakiin weygaan aan u karinaa maadaama bariis qudaar uu yahay dariiqadana mareynaa aan u sameynaayo insha Allah inaan isla fahanaa rajayna hadda biyaha ka soo miiraya waa isku soo noqoneynaa hadda waxaa soo qaadanay birtan waxaa ku soo shubtay saliida isticmaala waxaa xilwa sunflower oil waxaa ku shiilan doonaa basashi qudaarta intaan ayada inta kale la gaarin oo aanan karinin waxa markaa waa shiilanaa basasha basashan waxaa la rabaa ilaa kalarkeeda uu iska bedelo oo ay ka noqonayso brown in la shiilo markay si fiican u shiilanto oo kalarkeeda dhan dahabi uu noqdo ama brown ay noqoto aan ka dejinaynaa inta ka horeysa waa la shiilayaa awdayaal saa aragtaan basashii wili waxa waaye way karsamaysaa ama way shiilmaysaa waxaa rabnaa inay ka gaduudanayso inaan sugno intay basash sii bislaanayso waxaa meeshaan ku samaysan doonaa qudaartii saliid yar waxaa kusoo shubta weelkan digsiga kadibna waxaa kusoo shubayaa baradhada iyo karootada baradhada iyo karootada dabka u gaabinayna biyo la'aan la rabaa marka hore inay cabaar yara duurto ama yara shiilanto wax biyo ku darayno basashina saa u jeedaan intay noo saaran tahay iyadana wili hadda way soo bilowday inay kalarkeedu soo bedelo laakiin waxaa rabnaa hal midab oo cadaan inay ku jirno si fuul ay kalarkeedu isku wada bedelo wax yara sugna baradhada iyo karootada
hadda waxaa kusoo darsanayaa digirtan cagaaran oo green beanska ah waana nooca ceeriinka ah saa idiin soo sheegay basasha waxaa idin dhahay ilaa ay kalarkeeda iska bedelaysaa sugeynaa saa aragtaan hadda kalarka basasha wuu soo bedelay saliidan kaliya waxaa u isticmaalaa inaa wax ku shiisho hadda saliidda mu baahna waa iska miireynaa maadaama ay saliidda badan caafimaadkeesan u fiicneen waxaa sameynaa marka weelkaana kusoo shubanaya basasha ii diyaarsan oo basashii dhan waxay soo noqotay gold ama brown kalarkeeda dhan wuu isbedelay qudaarta ilaa hadda wax biyo imaanan ku darin waa isku daboolo digirti iyo karootadii iyo baradhadii kaliya isku daboole hadda waxaa inta igu karsamaysaa ogeedeen karootadii baradhadii iyo digirti cagaarneed waxaa rabaa inaad ku carfisto ama ku dhanaaniyo waxyaabihii aad dhadhanka ugu sameyn lahaa iyo carafta spiceska meeshaan spiceska isticmaalaya ma badno kaliya waxaa waaye huruud iyo sidoo kale xawaaji oo shiidan ama xawaaji powder ah waxaa kaloo dhadhanka qayb weyn ka qaadanaya oo isticmaali doonaa maraq digaaga Renzo oo asagana ka samaysan qudaar iyo chicken asagana waxaa ka isticmaalaynaa hal qaado bariiska dhadhankiisa qayb weyn uu ka qaadanayaa maraq digaaga nooca isticmaalayana waa kana waxaa hal mar kusoo wada darsanayaa spiceskii iyo maraq digaagii waxaa hal mar kusoo darsanayaa qudaarta dabkii saarneed qudaartan waxaa la rabaa huuris bel kaliya in lagu kariyo oo aan wax biyo ah lagu darin muhiimadda ugu weyn laakiin waa inaad dabka u gaabisid dabka u dheeraysid qudaartu way kaa gubanaya ayadoo si fiican kuugu bislaanin biyo inkees haddaa u baahatid aa isdhahdid qudaarta ma kuu bislo wax yar oo biyo waa isticmaali kartaa laakiin biyo badan ma u baahnid waxaa ku darsanaya wax yar oo biyo ah si qudaarta iyo xawaajiga xoogaa maadaama qaleel zaid ay isku dhex galaan laakiin ma aha biyo oo biyihii caadiga aan naqaanay oo lagu karinayo hal mar hab lagu siinayo ma aha saaxiibayaal qudaarta way soo bislaatay saa u jeedaan wixii dhan waa isku bislaadeen hadda waxaa ku gadinayaa weelkan karootadii baradhadii iyo digirtii wixii dhan way isdhex galeen saanay diyaar noogu tahay saaxiibayaal hadda meeshan waxaa ku jira bariiskii oo hadday biyaha kasoo miiraa u soo kariyay qaab sida baastada oo kale ah waa ogeedeen intana basashii aa soo gaduudsaday intana qudaartii aa soo diyaariyay meeshan waxaa ku haystaa kabsar iyo sidoo kale sabiib oo ayagana bariiska aa korkaga qurxin doono hadda waxaa sameynaya digsiga aa qudaarta kusoo samaystaa waxaa kusoo shubayaa bariiskii haaf bariis ah ku shubaynaa bariiska markooda shubaayay kadib markaa haaf bariis ee ku shubo waxaa dhexda ka gelinayaa qudaartii qudaartii dusha ka saaray saa u jeediin markaa qudaartii dhexda uga shubay waxaa kor ka saarayaa bariiskii waxaan rabnaa inaan isku hurino qudaartii iyo bariiska kadib intaas markay sheekada marayso waxaa dusha kaga soo shubaynaa basashii aa soo shiilnay aa ogeedeen in haddaay soo gaduudinaynay waxaa kaloo kor uga sii shubaynaa kabsartii carfin iyo qurxin labadaba qeybay yacni u noqonayaan way ka qayb qaadanayaan inay bariiskana kalarkiisa iyo midabkiisa ay qurxiyaan maadaama bariis cad uu yahay sidoo kale caraftana qeybay ka qaadanayaan waxaa kaloo kor kaga sii shuba haddana sabiibkii kadibna intaana isku huurinaynaa adiga ku dhawaad 8 daqiiqo meelahaas dabkana aada ugu gaabinaysaa maadaama waxa dhan ay bisil yihiin kaliya waxaa rabnaa inay isdhex galaan ay isku huuraan isku soo noqod wanaagsan waan isku soo laabanay bariiskii iyo qudaartii wixii dhan way isku huraysaa u jeediin hadda waa la isku dhex qasayaa si ay si fiican iskugu dhex galaan kalarkii iyo waxa dhan ay isku keenaan kadibna waa guranaynaa saasuu diyaar ku yahay hadda waa guranaynaa bariiska saasuu diyaar noogu yahay qudaartii waxaa ku dhahay bariiskii carfiskii dambe aa gadaal kaga daray baradhadii wixii dhan way isdhex galeen waa qayb waa cadaan qayb waa yellow qayb waa gold ama brown waxaa lahaa bariiskan sa hore idinkugu soo sheegay qudaar vegetable rice waxaa waaye qudaartaad yartaa ku farsamaysa hilib iyo jikin ha isku murjinin marna haddaa haysatid bariis macaan badan oo basmati oo kala daadanayo ma u baahnidbo hilib iyo waxyaabo badan inaad isku mashquulisid bariiska aa samaysanayna caawa ama aa karinaynana wuxuu ahaa saa hore idinkugu soo sheegay alfanaar basmatigiisa oo bariis maasha allah aada u macaan ah ugu dambeyn sidaan ugu soo baxay bariiskii aa samaysanaynay aad uu macaan badan yahay dhadhankiisa anaa idinka tijaabiyo idinka hubo
waxa ugu muhiimsan waa idin soo sheegay waxa waa productiga isticmaalaysid bariiska aad karsanayay qayb uu ka yahay oo alfanaar ahaa sidoo kale waxyaabihi aad ku daray saliidda aad ku soo kariyay waxay ahayd xilwa sunflower oil iyo maraq digaaga arkayseen oo asagan dhadhanka cuntada aad sameynay qayb ka qaadanay balaas khudaaryaashii aad ogeedeen oo kala duwan aad isticmaalnay ugu dambeyn sidaas uu soo baxay aad u jeedaan indhahan uu uroon yahay chicken kumaana darin hilib kumaana darin sidoo kale tan digaag kuma darin hadana ma sha Allah laga sheekeyn karo waxa rajayna inaad ka faa'iideen casharkan caawa idin siiyay ama qaabkan aad u sameeysanay bariiska oo na ka faa'iideysan doontaan insha Allah